النبي هويدنا عائشة waxay ka sheekaynaysaa radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waxay leedahay waxbaan cabayaa bit ama hilib baan cunayaa waxyaala cajaa'ibka kamid tahay hilib baan cunayaa mesela laf hiliba ayuu nabigu goosanaya sallallahu alayhi wasallam ama aniga goosanaya lafta hilibka aban halka ka goosanaya sax kadib ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam baan u dhiibayaa bit markaas intuu wareejiyo lafta hilibka ahayd ayaa meesha aan anigu ka goostay asna ka goosanaya Allahu akbar يعني وقمة وماشى قدام بيسا عجيب أو محل هذا ماشاس قيسك هو نكسن ماشاس عائشة إيه كجوسة إيه كعنت بواسين كجوسنا يا هل كلفت هذه مركب ما اسمه ديسي وشيء ده إيه هدفك مقرن يسا ماي طيب لعل الشحنبلي إنه هذا الشرح دوره لكن وحيالها إيه مقدر أبك عجائبك وحوي يعني لبض قف سيسكو كله يهم بالتمام يسا حتى nabigu sallallahu alayhi wasallam maanta cid kasta oo jacayl iyo xub iyo romance sheegata kula tahay kitaab kasta oo laga qoro iyo adduunka wixii soo baxa inay gaari karaan yani ficilkaas nabigu uu sameeyay sallallahu alayhi wasallam hatta cid kasta oo maanta sameeysa ayadu waxay doontaa sheegata nabi maxamed baa sameeyay sallallahu alayhi wasallam candhuuftii ayada meeshii candhuufteedu gaadhay ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam isku soo dhawaansho cajaa'ib way ma kula tahay sheekh Abubakar labada qof ee cuntada qofkan meesha wax ka goostay kii kale uu ka goosanayay ma kula tahay inay kala fogaanayeen jirkooda inuu kala fogaanayo ma kula tahay may ra'yigooda iyo aqligooda iyo maskaxdooda inuu kala fogaanayo ma kula tahay may candhuuftoodii baa kala fogaan weyday sidoo kale waxay leedahay waxa la isiinayaa maxaa la yiraahdaa wax la cabo markaasa koobkii nabiga cabay sallallahu alayhi wasallam mesela meeshu afka saariba intaan anigana wareejiyo ayaan meeshii lafteedii baan anigana ka kabanayaa bilaa ya salaam jacayl dhaafayo yani nabigu wuu sharci buu ahaa nabigu ummadda nolosha nabigu qoysaska iyo sidii ku hormari lahaayeen iyo khilaafaadka waxa yani waxyaalaha ka cajaa'ibka waxa kamid ah waxay leedahay hooyadina Aisha radiyallahu ta'ala anha isqul baan galaya qabaysanayna bay leedahay aniga iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam Allahumma markaas wali waxay leedahay marka aan daahirka ahayn halka xudunta ilaa lowga hoostiisa ayaan mara ku xirnayaa bay leedahay saasas waan markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam waxaan marka qarkood waxaan isdhaafsan jiray bay leedahay fiiri biyaha aan ku qabaysanayna ayaan isdhaafsan jiray gacmaha iyaga ayaa isdhaafi jiray inta uga sii dhaafi doono laakiin runtii yani nabigu sallallahu alayhi wasallam sidoo noo barayo in musqusha la isku qabaysto in biyaha iyo gacmuhu marka ay isdhaafaan in meesha ma taqaana laga goosto in laga cabo yani waa dicaabada meesha ugu cajaa'ibsan way kaftanka waxa kamida maalin baa nabiga sallallahu alayhi wasallam janaaza ayuu aaday meed janaaza ayuu aaday markuu soo noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa waxaan idhabay tiri Aisha waxay tiri alla madaxayo baan idhabay tiri markaasuu yiri ma adiga mise aniga alla anigana madaxayo markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma mushkilad maxaad ka fikiraysaa haddaad iga hor dhimato oo aan ku dhaqo oo aan ku kanfo oo aan godka ku galiyo oo aan kugu tukado wajida kaftanka iyo mataqaana la torkaas tir ha haddaan gartay waxa doonaysaa gadaasha inaad guursato shuf jawiga noocaas ee maraxa iyo kaftanka ficilka iyo qowlka xumbaarsan ma kula tahay reerka inuu si suhula ku dumayo wallahi abadan laga ma yaabo ma laga yaabo sax qiisaad